wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa soo saartay qoraal kale oo la xiriira dilka suxufiga Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi kaasoo ay ku taageeriso boqortooyada Saudi Arabia. qoraalkan oo Carabi lagu qoray isla markaana la soo dhigay barta Twitter-ka ee wasaaradda ayaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa baaritaanka dacwad oogaha guud ee Sacuudiga kaasi oo dad loogu xiray kiiska dilka suxufi Jamaal Khashoggi. qoraalkan ayaa intaasi ku daray Soomaaliya waxa ay tani u aragtaa talaabo jihada saxan loo qaaday oo lagu raadinayo xaqiiqda kiiskan. qoraalkan ayaa ah kii labaad oo Soomaaliya ay ku taageerto Sacuudiga marka ay timaado kiiska dilka Jamaal Khashoggi iyada oo Soomaaliya qoraal midkan la mid ah bil ka hor uga digtay waxa ay ugu yeertay handadaada ka dhanka ah Sacuudiga. sida la ogyahay qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa u dhacaya mid boqortooyada Sacuudiga iyo xubnaha xukunka haya loogu dhigayo inaysan wax shaqo ah ku lahayn kiiskan. si kastaba ha ahaatee hay'adda sirdoonka dhexe ee Mareykanka marka la soo gaabay loo yaqaano CIA-da ayaa go'aamisay in dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman uu amray dilka suxufi Jamaal Khashoggi taasi oo burinaysa dooda Sacuudiga ee ah in bin Salman uusan waxba ka ogeyn dilka waxaana sidaasi warisay Washington Post. qiimeynta ay samaysay CIA-da ayaa ah tii ugu xooganeyd ee bin Salman si toos ah ula xiriirinaysa dilka Jamaal Khashoggi oo 2 Oktoobar ka dhacay qonsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.